رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. وفي رواية الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. رواه البخاري. عبد الله بن عمر isagaya abihiis ba alla raaliha ka ahaadee waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ha soomina ilaa aad bisha ka aragtaan hana afurinina oo ha joojinina soonka ilaa aad bisha ka aragtaan haddii la idinka daboolana u qadara riwaayad kale ama warin kale ayaa waxay ahayd bishu waxay noqotaa 29 ha soominina ilaa aad bisha ka aragtaan haddiise la idinka daruureeyo ama daboolo tirada 30 dhammaystira oo gaarsiiya waxaa riwaayadana wariyey bukhaari. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.